السلام عليكم ورحمة الله وبركاته meel walba joogta adduunka waa idin salaamay anahu walaalkiin cali maco shariif maanta waxaan jeclaystay arrin oo muhiim ah inaan waxyar aan ka wada hadalno oo ama waxyar inaan tataabano oo ku saabsan wadamada hadda aan degannahay oo qurbaha oo dhibaatooyin badan aan kala kulmnay especially khaasatan caruurta aan dhalnay in aan kala kulmayno dhibaatooyin badan ku saabsan haddii ka imaado dhinaca dowladda waddanka ingiriiska waxaan maqlay ilmihii waxaa la baraa LGBT ma la dhaha ma aqaano silmaha inay oo dumar iyo naag inay isguursan karaan nin iyo nin inay isguursan karaan inay ilmo dhali karaan in la ogol yahay in okay tahay waxaasaa loogu sheekeynaya iskoolka waa hawsha la bilaabo waay dad badanna waa carareen hadday waddanka dhan ka carareen meelo kale raadsanayaan wadamada anaga degannahay Scandinavian meelaasna waxaa la bilaabay ilmihii mataqaanaa in dowladda madaxweynaha wasaaradda meesha haysto in ay happy new york hadalkii ay qabanaysay inay dhahday muslimiinta ama ajaanibka caruurtooda sida ilmaha loo tarbiyay ma yaqaanaan marka ilmihii anaga ka qaadanayna ilmihii oo adaabtiisa ay xumaato ilmihii nidaamkiisa uu fahmi waayay anaga ka qaadanayna anaga ilmaha barayna anaga ilmaha toobarayna sida saxda ilmaha loo tarbiyeeyo allahu akbar markaasaan mar hore aan maqalnay mar hore wararka ku maqasheen hooyooyin badan ajra ilmaha laga qaatay Norway, Sweden, Denmark iyo Finland, Ingiriiska meelaas hooyooyin badan in caruurta laga qaatay waa aragnay waa maqalnay wararka lagu soo qoray taasna wax badan xanuun badan ma nagu sameeyeen hadda anaga Soomaaliland nahay wax badan xanuun ma nagu sameeyeen marka arintaas sida loo hortagi lahay in hadda la galo way arintan sida loo hortagi loo sameeyay lahaa sida loo istaajin lahaa waana hadda laga hadlaa waana hadda maskaxda la geliyaa waana hadda dib habeen loo fiiriyaa meesha maxaa naga qaldan inaan fiirino way aniga markaan fiiriyay oo cabaar markaan barbaaray waxa ii soo baxday waalidiinteen anaga dhalan ilaahay ha barakeeyo hadday 10 sano gadaal loo noqdo ama 20 sano gadaal loo noqdo waxaan xoog saari jirnay ilmaha aan dhalnay Europe inay iska degnaadaan ay joogaan oo anagana wixii lacagta child benefit-ka lacagta caruurta lagu siiyo guri aan ku dhisayno Soomaali Hargeysa ha noqoto Burco ha noqoto Laascaanood ha noqoto Xamar ha noqoto Kismaayo ha noqoto waxaas oo dhan meel walba ha noqdaan ilmihii lacagtii lagu talgal ilmaha inay gelisid waxay noqotay waalidkii inuu wax ka jaro oo in adeer ama ilma abti iyo eedo iyo walaal iyo hooyo xanuunsan iyo qof xanuunsan lacagtaas in loo diro yani ilmihii caruurtii lacagtii u baahnaayeen ilmihii caruurtu waxay u baahan yihiin dhar in loo iibiyo waxay u baahan yihiin jacket winter in loo iibiyo waxay u baahan yihiin gloves in loo iibiyo waxay u baahan yihiin kabooyin fiican in loo geliyo dhar qurux badan in loo iibiyo mataqaana loo baahan yahay laakiin waxa nasiib daro waxa dhacday ama waxa hadda dhacdaaba lacagtii hagbada in lagu galo in guri lagu dhisto Dubai laga dhisto in laga dhisto Masar laga dhisto in Kenya laga dhisto oo caruurtiina Europe degan yihiin ay ka baahan yihiin ilmihii Europe joogan ay ka baahan yihiin oo iskaalshooyinkooda oo daloolo dharkooda oo daloolo oo laga arkay aan aragnay taas waxa keenaysa waalidka daciifnimo taas waxa keenaysa ilmahayga in oo quality-giisa ama dhaqankiisa in hoos u dhacdo taasna waxay keenaysaa in ilmaha loo arko ilmo oo noloshoodu ay dayacsan tahay ilmo noloshoodu ay daciif tahay markaas waxay keenaysaa gaalka inuu kusoo fiiriyo ilmuhu ka qaato hadhow waxa markaas oonaysaa aqaylanaysaa war arinta inta ka dhacday maxaa qaldan marka sheekada waxa waaye calaamad lamada fi saxaab in arabta intaan roob imaanin hawada soo xiraysa hawada markay soo xirto markaas waxa dareemaysaa meeshan inuu roob soo socdo ana arintan 20 sano ka hor aan ogeyn sida hawsha u dhacayso ilmo badan waa la qaatay ilmo badan gaala soo korsadeen marka sidaan ka hortag loo sameyn lahaa lacagta oo caruurta lagu siiyo child benefit-ka lagu siiyo ilaahan kugu dharshiyo in adeer in abti iyo qof Soomaali joogo qofkaas xaq ma u lahan lacagtan xataa adiga hooyo ahanka abahan waxa lagu leeyahay ma lagu ogol inaad isticmaasho maadaama ilmaha oo lagu siiyo lacagtaas ilma child benefit ma kala dhahay macnihiisu waxa waaye ilmahan lacagta in ayaga gelisid waa ilmaha waa inay nuuraan waana wax fiican quality hatta ilmaha lacagtooda gili maalka si ay diinta u bartaan si ay salaada u bartaan si ay meesha ka imaday u bartaan maxaa dhac lacag meel loo diray guri laga dhisay guriga Soomaali laga dhisay wiligan ma u socono wiligan ma degeynano meel aan u socono ma ahan meel aan target aan kaleena ma ahan waan dhisnay waan sameeynay nin waardiya meesha taagan waardiyaha $100 loo diray bil kasta inuu guriga ku ilaaliyo marka run ahaantii caruurtii aan anaga dhalnay markaan fasax meesha u tagno waa aragnaa inay oonayaan aaba marabno meeshan hooyo marabno meeshan waa wasaq waaye nadiif ma ahan marba ooyaan ilma aniga dhalida waa soo arkay maalmo oo jireen marka run ahaantii xaqiiqada caruurteena aan dhalnay meeshaas ma aadayaan meeshaas ma rabaan marka waxa qasab nagu ah hadda anaga aan walaalo aan nahay ama waalid aan nahay ama Soomaali aan nahay
in ilmaheena guri Soomaali laga dhisay ma u socdaan mana tagayaan. marka maadaama waddanka ay joogaan Yurub ay joogaan qurbaha ay joogaan lacagtooda lagu siiyo gili lacagtaas ilmaha ku dhis ilmaha quality ka soo saar ilmaha ku quudi ilmaha inay ka nuuraan waay ilmaha waxay u baahanin ilmaha gaajo iyo arkin ilmaha dhar walba qurux badan telefoon walba qurux badan ilmaha si khaasatan waxaad xoog saartaa ilmaha inaad diinta gelisid macallinka qur'aanka ku bara ilmaha ha ka xasdino ku shub gili si عقيدة هلا برو بري كمالن مركا أدونك أكتكتت مركا أدونك أكتكتت بري كمال إن شاء الله تعالى مركز الماء هاي هوش أو قوتي خيرك أو قوتي مركز فهم عيان لغاية بقى إن كوسو الدعاء إن شاء الله تعالى أدو قبلك وجرتد مركا العكتاس أيها جيلي إن أدار إن أبتنس كده إن شاء الله تعالى أيها حق الله مال بجوتهم سلامي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته